dunidu ma ahan meel ay ku tartamaan dadka, balse waa halka uu qof kasta ku beerto natiijo isaga u gaar ah. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا. السلام عليكم، waxaan ahay Qaasim Maxamed. ku soo dhawow muuqaal cusub. xaqiiqda nolosheennu ma ahan inaan tartan kula jirno dadka kale, balse qof kasta tartan iyo mashquul waxaa ugu filan midka uu kula jiro naftiisa. nolosheennu waxay qiimo yeelanaysaa marka aan ku mashquulno nafteenna, kuna bixino waqti iyo qorshe howleed aan ku gaarsiinayno halka ay mudan tahay. dunida waxa nacaybka iyo xaasidnimada ka dhaliya ayaa ah la tartamidda dadka kale, adigoo kula tartamayo dhanka dhaqaalaha, quruxda, wax soo saarka, waxbadnida iyo wax kasta oo aad u aragto inay qiimo gaar ah u leeyihiin naftaada. balse xaqiiqda nolosha way ka fog tahay sidaas. inaad isu aragto tartan inaad kula jirto dadka kale waxay ku dhaxal siinaysaa inaad arki weyso nimcada uu Alle ku siiyey oo ah mid aan la soo koobi karin, inaad ku qanci weyso awoodda iyo kartida aad leedahay, isuna aragto inaad tahay qof laga sareeyo. in naftaada gudaha ka gubato marka ay aragto qof kale oo guuleysanaya, farxaya, ayna isugu toosan yihiin arrimihiisa oo dhan. taas beddelkeeda waxaan ku leeyahay la tartan naftaada oo iyada ka adkow. la tartan naftaada oo ka beddel caadooyinka ay joogtada ka dhigatay oo dib u sii jiidaya maalinba maalinta ka dambaysa. la tartan naftaada oo ka dhaqaaji booska iyo xaaladda adag ee ku jirta maanta. la tartan naftaada oo ka fogay saaxiibada iyo ku xirnaanta dadka aan u wanaagsanayn horu socodkeeda. oo xasuusnow, tartan midka ugu adag uguna wanaagsan waa midka kaala dhexeeya isla adiga iyo naftaada. ugu dambeyn, ma jiro tartan ka xiiso iyo ka guulgaarid wanaagsan midka idinka dhexeeya adiga iyo naftaada. sidaasi darteed u soo wareeji mashquulka iyo la tartamidda naftaada halkii aad la tartami lahayd kuna mashquuli lahayd dadka kale. hagaag, inta aan goordhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay waxaad u qalantaa farxad, jacayl, horumar iyo isku filnaasho dhan walba ah. ee waqtigaaga ku bixi sida aad tartan miro dhal ah ula yeelan lahayd isla adiga naftaada. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.